gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucud injineer Faysal Calwaraabe oo maanta ka hadlayay munaasabad xisbigiisu qabsaday ayaa ka hadlay kiiska gabadh wariye ah oo iyada iyo hooyadeed dhawaan ciidanka booliska Soomaaliland ay jirdil u geysteen taasi oo cabasho marisay baraha bulshada isla markaana sheegtay in dhaawacyo jirdil ah lagula kacay iyada iyo hooyadeed. Injineer Faysal Calwaraabe ayaa sheegay in habdhaqanka booliska ee jirdilka gabadhaasi wariyaha ay ka turjumayso dhibaatooyinka ay ciidanka booliska ku hayaan bulshada rayidka ah, arrintaana uu si kul u cambaaraynayo. maanta waa waqti dalkeeda hor maraya wara cid ka wakiila qof kasta wuxuu doonaya halkiisa ku sameeyo qof kastaba mas'uul kastaba wuxuu doono ayuu sameeyaa waxa ka markaati kacaysa inanta iyo hooyadeeda lagu dilay station booliska xaafadda maxamuud hayni adduunka maanta meel kasta aynu waxaayo u tagay meesha inay warqad ka soo qaadataan qofla hore u dhaawacnaa labadiiba la garaacay inantiiyo hooyadeedba wax xisbiga u xilbaa weeye hooda yar waxay hablaha xisbiga ugu firfircoon